maxamed qanyar wuxuu yidhi warhawiyo baldhinac isugu kaya bixiyo wixii aan annaga buntuq haysanay iyo wixii aanu madfac haynay iyo waxaan hub haynay halkaa cismaan cilmi boqorraa oo xuudkaas oo kursiga kamaan celin waynin buu yidhi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa tagay qaybo ka mid ah gobolka Gedo halkaasi oo ay uga qayb galayaan gobol wada tashi ah oo isugu imaanayaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo madax dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga arinsado xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee gobolka Gedo kulankan wada tashiga ayaa ku soo aadaya xilli gobolka Gedo muddooyinkii ugu dambeeyay uu wajahayay xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran kuwaasi oo ka dhashay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland gobolka Gedo ayaa marar badan noqday goob ay ku loolamaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland taasi oo saameyn ku yeelatay amniga iyo waliba adeegyada bulshada Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in gogasha la fidiyay ay tahay mid lagu raadinayo xal waara oo dadka reer Gedo ay si wada jir ah ay uga tashtaan mustaqbalkooda isagoo tilmaamay in wada hadalka iyo is-afgaradku ay yihiin jidka kaliya ee lagu xallin karo khilaafaadka soo noqnoqda isagoo la hadlayay warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay ka horumariyaan danaha shacabka wax walba kana fogaadaan siyaasadaha keeni kara kala qaybsanaanta iyo waliba colaad hor leh xalka gobolka Gedo waa in la wada tashto oo la isugu yimaado sidii loo wada noolaan lahaa siyaasaddu xeer lagu kala baxo ayay leedahay ee aan wada noolaano hal ciidan ayaan wada nahay waa in la isqadariyaa ayaa ka mid ahaa hadaladiisa waxa uu sidoo kale fariin u diray siyaasiyiinta waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna sheegay oo uu ku booriyay in ay ilaaliyaan midnimada bulshada reer Gedo isla markaana ay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta iyo wadajirka si looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee muddooyinkii dambe ka taagnaa gobolka Gedo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa si adag uga hadlay faragelinta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso gobolka Gedo isagoo oo sheegay in xalka lagu gaari karo oo kaliya wada hadal balse aan xoog iyo cadaadis military lagu gaari karin waxa uu sheegay in shacabka ku nool gobolka Gedo ay yihiin in lagu maamulo wada tashi iyo is-afgarad siyaasadeed halkii loo adeegsan lahaa awood ciidan gobolka Gedo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayay xiisado siyaasadeed iyo kuwo maamul oo soo noqnoqday khilaafkaasi wuxuu si toos ah u saameeyay amniga ganacsiga isku socodka dadka iyo horumarka adeegyada aasaasiga ah ee bulshada dad badan oo deegaanka ayaa rumaysan in wada hadal dhab ah iyo heshiis siyaasadeed lagu dhammayn karo khilaafka ka jira gobolka Gedo ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dowladda Jubbaland gogasha wada tashiga ee hadda ka socota gobolka Gedo ayaa loo arkaa dadaal cusub oo lagu doonayo in codka bulshada reer Gedo la mideeyo laguna helo aragti midaysan oo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed iyo midda maamul ee gobolka Gedo iyadoo la rajaynayo in kulamada socda ay ka soo baxaan wax xal waara u noqon kara shacabka gobolka Gedo waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya loo baahan yahay inay faragelinta siyaasadeed ee qaawan ay ka dayso arrimaha gobolka Gedo iyaguna ay aayahooda ka tashtaan maadaama ay yihiin dad reer Jubbalandna ay ka tirsan yihiin maroo arrimahaasi ka hadlayay waxaa hadalkiisii ka mid ahaa ajandaha koowaad waxaan ka soo jawaabnay baaqi maamulka heer gobol iyo heer degmo salaadiinta halkan joogtay ay ku baaqeen oo ahayd in wada tashi iskugu yimaado iyo talada ay bixiyeen oo ahayd in la wada noolaado waxaan u malaynayaa xigmaddii qarnigan ee gobolka Gedo inay talaas noqon doonto baaqi halkan ka soo baxay luuq sababtoo ah waxaan la yidhahdaa xoogga xal waa noqon waa aan wada noolaanno aan isqadarinno waa kaa qori badnahay ma jirto hadda ka hor waxaa dhacday shirkii imbakaasilkan dowladda kumeelgaarka soo dhisay waa tii hogaamiyaashoo dhan lisu keenay guddigii hogaamiyaashan anaga ka mid ahaa aftashidda waa tacab axda qarmeed baan ku heshiinay cid kastoo shaki qabtay iyo si ay Soomaali iskugu soo noqon lahayd iyo nidaam federaali awooddiisa baahsan tahay oo lagu heshiin karo waxaasoo dhan marka la qaatay ficilkii in dowladda la dhiso marka la galay allah u naxariisan in maxamed qanyar afrax la yidhaah baa waxaa la dooranayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka maxamed qanyar iyo tiimkiisa reer Muqdisho waxay soo sharaxeen nin la yidhaah Axmed Diiriye
tiim kalena waxay soo sharaxeen nin la yidhaha cismaan cilmi boqorre oo nin ciise ah nin oday ahna codkii baa sanduuq laiskugu tego hebel 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 si loo lahaa cismaan cilmi boqorraa helay doorashadii waa lagu dhawaaqay maxamed qanyar wuxuu yidhi war hawiyow bal dhinac isugu kaya bixiya wixii aan annaga buntuq haysannay iyo wixii aanu madfac haynay iyo waxaan hub haynay halkaa cismaan cilmi boqorraa oo xuudkaas oo kursiga kamaan celin waynin buu yidhi ya allahu naxariis maxamed qanyar konton suu iyo ka badan buu markaa hayey asaga shakhsiyan laakiin rag hubka kaga laandheeraysan oo maxamed cumar xabeeb allahu naxariistay iyo muuse suudi iyo ismaan caate iyo xuseen caydiid ilahna waa fadhiyeen dhammaantood waxay rabeen ninka axmed diiri inay saaraan kursiga nin dudub lu ahaa markii aan axad qarmeedka qoraynay maxamed qanyar wuxuu dhihi jiray dagaalka labaad adduunka markuu dhammaaday madfaca afkiisa wax lagu qaybsaday si loo kala qori weyn yahay marka annaga hawiyaha kaba aad lahayn ha gashan inuu dhihi jiray dadka kale waxaan madfac haysan iyo qori waad ogtihiin marka wuxuu yidhi mar haddaan waxaan hub hayna cismaan cilmi boqor kursi ka celin weyne qofkaan cabdullahi yusuf lacag noo raadayaan nidhi hadaanna ku wareejin uu yidhi codna aan soomaali ka raadsan marka madaxweynihii hore hadda xasan sheekh maxamuud asaga hadda maanta ay u cusub tahay qoryihii iyo hubkii iyo xooggii in wax lagu raadiyo ragna halkaasay ka gaartay marka in la isqadariyo oo la wada noolaado oo dad walba qaryo walba inta ku wada nool ay si qiimo leh iyo xeer ay degsatay iyo xeerka dalka iyo nidaamkiisa in lagu noolaado mooyaane xoog waa la soo tijaabiyey dowladdii kacaanka waad ogtihiin jabadii ku kacay iyo xooggooda meeshuu ku dambeeyey annaga intaanu baawar istaragalka ama awoodda la kala riixanay waad ogtihiin dhowr iyo 10 sano shirkaas dowladda lagu dhisay wixii ka horreeyey marka waxaan hadalkii marka luuq ka yiri xigmad buu ahaa xigmaddaas runtii gobolka nafsis buu ku helay war annagoo kale aragti gedisan oo madaxdana xukunta ay ayagu isa salaami karin oo siyaasad isku hayaan oo cad kala dhacsanayaan annaga ma wada noolaan karna miyaabaa soo baxday arrintaa marka waxaa xoojiyey tii garbaari haddana ka dhacday aan wada noolaanno